hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed oo uu hogaaminayo gudoomiyaha hay-adda mudane Maxamuud Macalin ayaa kulan la qaatay ganacsato ay hogaaminayaan mas'uuliyiinta sare ee rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed. Kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray ka hortagga musiibooyinka dhici kara sanadkan, taasi oo ku timid daraasad lagu odorsay. ugu horeyntii hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa warbixin sanadeedkii hore ku saabsan iyo odorosida sanadkan ka horjeedisay mas'uuliyiinta kulanka ka soo qayb gashay. gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed mudane Maxamuud Cabdi Cali Gabayre ayaa ka hadlay ka hor inta aanan la yegleelin hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka, asaga oo tusay in abaabulka rugta ganacsiga uu ahay udub dhaxaadka iyo garbaha lagu harsanayay laguna taakuleynayay deegaan kasta oo ka tirsan dhulka Soomaaliya. waxaana uu intaas raaciyay in rugta ganacsigu ay ka qayb qaadatay abaabulkii musiibadii ka dhacday dalka Turkiga. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaasha rugaha ganacsiga dowlad goboleedyada dalka sida gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir, Jubbaland, Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay waaxda bangiyada, dhoofka iyo soo dejinta iyo ganacsatada gaadiidleyda, kuwaasi oo dhammaan ka xog hadlay musiibooyinka guud ee dalka iminka ka jira. ugu dambeyntii mas'uuliyiinta kulanka ka soo qayb gashay ayaa soo dhaweeyay baaqa hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed, ballanna qaaday in ay ka qayb qaadanayaan barnaamijka ay hay-addu soo bandhigtay.